waxaan ahay magacayga Deeq Axmed baa lahaa waxaan ahay marxuumka meesha siyaala maamadii islaantii uu qabay xaaskiisii baan ahay carruurtiisii waa kuwaana sargaal booliska buu ahaa oo gaashaan la dhaxa meeshaan banu deganay deegaan ku ahayn waxaana la ku yorgeliyay shalay in la yiri dhulku waa la duminayaa maxaad uga bixi weysay wuxuu yiri taliyaan oo meelan aaday meelan aan garanayo ma jirto haddaadan bixin wuxuu yiri waan ka duminayaa dumiyuri talanshano shaqada kuma qabsanaaye waa la wacay xafiiska waxa laga wacay guud xafiiskii buu tagay waxa lagu yiri soo xukayn baa loo soo dirayaayo guddi baa loo saarinayaayo guriga ku laabo xalay 3 saac baan kala seexanay koortii aan seexanay 5 saac ma ka seexanay anaga koortii aan seexanayna saakadan soo baxna 2 saac bar la marayo meedkiisa waxa dhexdiisa lagu arkay ciidanku baan tusay meesha jooga waana la diray qof isagu waalan ama wax cudur qabay midna ma uu aha qaarkoodna waxay magaalada galiyeen ninkan waa laayay mooto ay jugsiisay way jirtaa laakiin ma waaleen wax cudurna ma uusan qabin nin reeriisa dhaqanayo shaqadiisa aadayo dantiisa yaqaan uu ahaa hadda intaasaan social media madaxdu u sheegayna madaxdu way ogtahay wax isdela ma jiraan waa lagu daba joogaa waa la soo wacay waa loo sheegay culayska jirana ilaahay baa garan kara inta uu leeyahay marka wax isdelaada ma jiraan waa in la dilo si uu la kaca loo dilay wixii dilana waa lagu daba jiraa waa la raadinayaa isaga xalay 3 saac baa telefoon loo soo diray waxa lagu yiri waa lagu dacweynaa isagana waa la dacweynaya waa la xirayaa gurigana waa laga duminaya ilmahan waa lagu leynayaa waa la yaqaanaa yaa soo wacay qof leeyahay haadina man madaxda xirada ka tirsan baa soo wacay markii hore yaa yiri gurigan ka guura yaa tahay cid maarta la macaamilaysi taliye sul baa ku yiri waa laga bixinaya waa loo baahan yahay saacad aragtay meedkiisa saaka 2 saac barbaan aragnay xirada dhexdeeda ku aragnay arkiisan xaalad noocay ku sugnaa qof isdilo maya wuu labisnaa geedka sartiisa oo labisnaa diriiskiisa qaranka labisan ayaa geedka meesha dhakada isaga u sareysa soo ku xirxiran baan ciidankuna tusay dheena abiino meed halkaas yaalana la ku wargeliyay xarigu ku xirna marka xarig oo anu waa dareemi kartaa maama la yiri ninkaadii baa dhintay iyo ilmo abahooda dhintay la yiri waa dareemi kartaan qalbigooda iyo maxay tahay waxyaabaha gaari kara anagu qalbiga ma helin fursada ma helin waan shoogna waan iska soo cararnay ciidanka baa kala ordayo meesha ka furayo maxay tahay si ka bacdina si ay imaatay sawirra laga qaaday ayaga ka furan xarkihii ayaga meesha dhigeen meedkii wali meeshii buu yaalaa kulay madaxda waa imaatay taliyada booliska waa imaaday wixii ay ku dambeey doonto waxay ka qabanayaan sharciga ka qabanayaan ayaga garanaayo taliyaha booliska mid la kulmay muxuu ha waan la kulmay oo yimid wuxuu yiri ilmahan anaga qaadanayna meedkana anaga duuganayna wixii dhacana waa laga daba tagay hadii la yiraahdo ما بوحنا جورا تاع أنت دلك كهر واحد على سو قال إنك بيصيرنا مجري ما يعني أنت نقول لك أهين مجري وعلى ذلك صار نقول للدمية يقول لي رح للدمية الور قليين وبنايو وان بناينا يا ويرانو ميلان أداي ميلان كأدي مننا ما نقارنه سرقال باقي مضابنا هاي لكن وان بحيا فرصتها لا يسيو فرصة دي معناها إن لا سير الربيع أما إنه ملاح وتجو دعوة الربيع طليع ولا بتنا فالكان كوسو حجوا ميت كيسوا هذا كله ده حرك. Thank you.